قاموس وأمريكان إنجليش 1776 كينا حريديisa ayuu ka qaatay UK marka waa maxay farqiga u dhaxeeyo British English iyo American English luqadda Ingiriiska gurigiisa labaad waa America kadib adduunku ku sii faafay marka la fiiriyo isticmaalada adduunka American English asiga hoggaanka u hayo waa mid ka dawladaha iyo meel walbo TV-yada newsyada heesaha meel walbo ninka leaderka u ah oo American English ku soo baxan waxa jiro 6 lahajadood halkay luqadda ay tahay mid isku mid ah marka loo eego qaab dhismeedka iyo hingaada guud ahaan waxaana jira kala duwanaansho waana wax yar oo caan ah sida hingaada iyo ku dhawaaqida ereyada qaar inta badan waxay la xiriirtaa dhamaadka